soo kacay oo halkan aan rabay inaan ka hadlo waxa weeyaan arrintan miisaaniyadda ku jirta ee halkan lagaga dhawaaqay waxa laga dhawaaqay oo laga hadlay waxa la Soomaaliland waxa ku qoran 400 Soomaaliland waxa weeyaan Soomaaliland wax wada hadalada lagu bixiyaa baa horena 200 baan maqli jiray 200 baa Soomaaliland ku qorano wada hadalada Soomaaliland bay ku qoranta Soomaaliland wax wada hadal oo ka socda ma jiro 3 sano ee dawladda ku jirnay wada hadal Soomaaliya iyo Soomaaliland oo socda ma jiraan wax ku magacaabanina ma jiraan lacag lagu bixin karo iyo wax lagu qaadan karana ma jirto cid qaadata iyo cid bixisa iyo cid ku wada hadashaana ma jirto waayo wada hadalka Soomaaliland waxa la yiri wax gudiya oo magacaabana ma jirto waayo waxaan adiga walaala tashan oo lagu weydiin adoo taagan oo mas'uuliyadaada ay jirto oo cid labada gole anaga ka tirsan labada gole cid naga la hadashana weydiisay ma jirto gudigaasna wax ka jira oo sharciya ay yihiin ma jirto wax wada hadal Soomaaliya Soomaaliland 3 sano dhexyaala ma jiraan marka lacagta la leeyahay Soomaaliland mashaariicdiiba waraaqada la qoraya waa laga joojinaya waxa la Soomaaliland hal cuna qabateeyo mashaariicda laga joojiyo lacagaha laga joojiyo deeqaha soo galay laga joojiyo ma 400 baa wada hadal Soomaaliland lagu sheegay naaba waa xaraan Soomaaliland la iska daayo dhibaato inuu ku filan waa lagu hayaa mar warqad la qoro codka ifur maxay iga xidhaysaa mar warqad la qoro mar la dacweeyo mar la dhibaateeyo mar la caga la qaado oo qas iyo qalaanqa laga soo abuuro iyo dhibaato ku socota in ugu filan Soomaaliland way qabtaa dibna waan ku haynaa laakiin magaceedii 400 iyo xaaraanta laga joojiyo intaasan codsanaya mudane gudoomiye miisaaniyadda in laga saaro